kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaa email kasta waad joogtaan baa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadha dhinaca iyo dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka waqooyi ee deegaanka Tigreega oo haatan muddo ku dhawaad 23 maalmood ah uu ka socdo guluf dagaal oo u dhaxeeya ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo ciidanka maamulka Tigreega. haddaba aan ku bilaabanay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa uu bixiyay sida aad wararkeennii horeba kula socoteen amarkii ugu dambeeyay ee dagaal ee lagu soo aftarayo kooxda fallaagada ah ee TPLF kuwaasi oo iyagu indhowaalaba dagaal khadhaadh kala horjeeday ciidanka militariga dalka Itoobiya oo ay sheegeen in uu ku soo qaaday duulaan gardarra ah. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ciidamada uu ku amray in si rasmi ah ay u soo afjaraan jiritaanka kooxda TPLF balse kooxda TPLF ayaa iyadu dhankeeda waxa ay muujinaysaa in ay difaac adag ah ugu talagashay in ay kala hortagto ciidanka militariga dalka Itoobiya ciidamada dowladda Eritrea iyo weliba maleeshiyaadka kala duwan ee maamulka Axmaarada. haddaba iyada oo maalinnimadii shalay ahayd ay dhaceen dagaallo culus oo ka dhacay jihooyin kala duwan oo magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega si weyn uga durugsan dowladda federaalka ah saraakiisha ka wakiilka ah ee hogaaminaya ciidanka militariga Itoobiyana ay sheegayeen in ay ku xayndaaban yihiin amaba ay ku hareeraysan yihiin magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ayaa waxaa soo baxaya haatan warkaasi si weyn uga duwan oo xaqiijinaya in ciidanka militariga dalka Itoobiya ilaa iyo haatan aysan gaadhinba meel ay madaafiicda dhinaca dhulka ama sawaariikhda dhinaca dhulka laga ganaahi ay ka gaadhi karaan waxaana warkaasi xaqiijiyey taliyaha ama madaxa isgaarsiinta amaba afhayeenka ciidanka militariga dalka Itoobiya General Maxamed Tasema kaasi oo isagu maalmihii dhoweyd oo dhanba sheegayay in ay ku xayndaaban yihiin magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. General Tasema waxa uu sheegay in ciidamadii weerari lahaa amaba geli lahaa magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreegu ay safar dhinaca dhulka ku jiraan goobo badanna ay dagaal kula kulmeen ayna ku guuleysteen goob kaste oo ay dagaal kala kulmeen waxaana uu sheegay ciidamadaasi in ay gaari doonaan maalinnimadan maanta ah oo taariikhdu ay ku dhagan tahay 27 bisha 11 ee 2020. Maxamed Tasema waxa uu sheegay in marka ciidamadaasi ay gaadhaan goobaha ama jiida hore ee ay ku hardamayaan ciidamada maamulka Tigreega iyo kuwa dowladda federaalka ah in uu si rasmi ah u bilaaban doono gulufka la doonayo in lagu galo magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. warka kale ee xiisaha leh ee ka hor imaanaya warka afhayeenka ciidanka ayaa waxa isna uu yahay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya isaguna uu sheegayba haatan in ciidamadoodu ay gelayaan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega taasi oo muujinaysa in iska warqabta saraakiisha iyo weliba mas'uuliyiinta kala duwan ee dhaca hogaaminta dalka Itoobiya uu haatan aad u yar yahay wax xog ah oo ay iska hayaan aysan jirin. wasiirka gaashaandhigga Itoobiya waxa uu sheegay in 2 maalmood kaliya ay ku soo afjari doonaan gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxda TPLF ayna kula wareegi doonaan deegaanka Tigreega oo dhan oo ay ugu horeyso magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. taliyahan ama wasiirkani gaashaandhigga oo lagu magacaabo Yedeta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka militariga dalka Itoobiya ay haatan ku xayndaaban yihiin magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega ayna u jiraan qadar dhan qiyaastii 30 kiiloomitir wax ka yar. waxa uu sheegay wasiirku in aanay jirin cid ka hortaagan haatan gelitaanka magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega oo dhammaanba haatan ah mid go'doona oo aanay jirin cid ka bixi karta iyo cid soo geli karta. warkaasi sida aan sheegnayba waa war khilaafsan amaba ka hor imaanaya
warkii uu sheegay afhayeenka guud ee ciidanka militariga dalka Itoobiya ee haatan iyagu howlgalka ku jira General Maxamed Kasema kaasi oo sheegay in ciidamadii geli lahaa ama ciidamadii qaadi lahaa weerarka lagu soo afjarayo kooxda TPLF ay wadada ku soo jiraan dagaallo dhowr ah ama dagaallo ay la kulmeenna ay guula ka soo hoyeen ayna soo gaari doonaan kolba xilliga ugu macquulsan jiida hore ee difaaca magaalada Maqale ay kaga jiraan haatan ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya. dhinaca kale dagaalka iyaguna waxaa qayb lixaad ka qaadanaya dowladda Eritrea oo iyada naftirkeedu ay muuqato haatan kaalin mugle inay kaga jirto howlgallada la doonayo in kooxda TPLF lagaga saaro magaalada Maqale iyo nawaaxigeeda. wakaaladda wararka ee dalka Eritrea ayaa waxa ay baahisay amaba ay sheegtay in cutubyo ciidamo ah oo iskaashanaya oo ka wada tirsan ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidanka dalka Eritrea amaba ay ku sheegtay cutubyo dhinaca farsamada ka caawinaya ciidanka dalkaasi Itoobiya in ay iyaguna haatan dhaqdhaqaaq ka wadaan meel u jirta magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega 220 kilomitir ama 20 kilomitir oo kaliya wax aan ka badnayn. waxaana goobtaasi ay sheegtay in haatan ciidamada iskaashanaya ee militariga dalka Itoobiya iyo weliba ciidamada farsamada lagu sheegay ee iyaguna ka qayb qaadanaya sidii kooxda TPLF looga takhalusi lahaa haatan ay dhaqdhaqaaq ka wadaan sidoo kalena ayba bilaabeen duqeyn dhinaca dhulka ah oo ay ciidamada militariga dalka Itoobiya ay ku geysanayaan amaba ay la beegsanayaan goobo cayiman oo ka tirsan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Eritrean Press. waxa ay sheegtay in ciidamadu dhaqdhaqaaqii ay wadeen ilaa iyo shalay gelinkii hore ay guulo waaweyn ka gaadheen ayna la wareegeen sida iyadu ay sheegtay goobta lagu magacaabo goobta laga dhaliyo quwadda korontada oo ka mid ah meel aan ka fogeyn magaalada Maqale. waxaana ay goobtaasi ku sheegtay in la yidhaahdo Ashegoda oo ah goob ay beer ahaan ah oo sida la sheegay laga dhaliyo quwadda korontada qiyaastii quwad koronto oo dhan 120 megawatt ayaa laga soo saaraa ayay tiri oo dhinaca quwadda korontada ah. Ashigoda ayay sheegtay in ciidamada militariga dalka Itoobiya ay si rasmi ah ula wareegeen dhulkaasi oo ah dhul ballaaran dhinaca barigana kaga beegan deegaanka ama magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega. ayay sheegtay in si rasmi ah ay u maamulayaan ciidanka militariga Itoobiya iyo weliba kooxaha dhinaca farsamada ka taageeraya ee ka socda ciidamada dalkaasi Eritrea. waa sida ay sheegtay Eritrean Press. waxaana ay sheegtay in haatan ciidamadaasi ay u darban yihiin sidii ay u soo afjari lahaayeen amaba meesha ay uga saari lahaayeen kooxda TPLF ee iyadu dhibaatada ku noqotay guud ahaanba geeska Afrika. waa sida ay sheegtay Eritrean Press. waxaana ay sheegtay Eritrean Press in saacado kooban lagu soo afjari doono gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxda TPLF. warkani oo u muuqda mid ka mid ah ololaha dacayada ka dhanka ah weerarka la doonayo in lagu qaado magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi Eritrea waxa ay isu diyaarinayaan ciidamada dalka Itoobiya gaar ahaan ciidamada lugtu in ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee iyagu geli doona magaalada Maqale waxaana taageero ay ka heli doonaan ciidamada dalka dalka Itoobiya oo ay sheegtay in ay si firfircoon uga dhaqdhaqaaqayaan guud ahaanba hawada magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. sidoo kalena waxa ay sheegtay in ciidamada ku jooga gaadiidka gaashaaman iyaguna ay haatan isu diyaarinayaan sidii ay kaalin mugle uga qaadan lahaayeen sifaynta waxa loogu yeeray kooxda argagixisada ah ee TPLF kuwaasi oo ay sheegtay Eritrean Press haatan gebi ahaanba waqtigoodii in uu dhammaaday. dhinaca kale waxaa iyaguna warkani war ka duwan sheegaya kooxda TPLF ama hogaaminta sare ee maamulka Tigreega kuwaasi oo iyaguna sheegay in ay isu diyaariyeen sidii ay isaga difaaci lahaayeen dhammaanba weerarada qorshaysan ee ay ku soo qaadayaan kooxaha kala duwan ee iyagu haatan weerarka ku ah magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega.
waxa uu sheegay afhayeenka ciidamada maamulka Tigreega Gabriel Sadaqa in ciidamada militariga ama ciidamada iskaashanaya ee maamulka Tigreega iyo weliba maleeshiyaadku ay horeyba u sii diyaariyeen qorshihii difaaca magaalada Maqale wax cabsiyana aysan ka qabin in ciidamada Itoobiya iyo xulafadoodu ay soo galaan magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega waxa uu sheegay in ciidamadooda oo gacan ka helaya maleeshiyaadka kala duwan ee Tigreega haatanna ay isku diyaariyeen sidii ay dhabarka uga jabin lahaayeen gebi ahaanba ciidamada duulaanka ku soo ah magaalada Maqale oo isugu jira ciidamada maamulka Addis Ababa iyo sidoo kale ciidanka ka imaanaya dhinaca iyo Asmara waa sida uu sheegay kuwaas oo uu sheegayba ilaa iyo haatan in ay awood u lahayn in ay soo gaaraan magaalada Maqale marka laga reebo duqeyn dhinaca cirka ah oo uu sheegay muddadii dagaalku uu socdayba in ay ahayd waxa keliya ee ay dhibaatada ah ee shacabka Tigreegu ay la kulmeen waxa uu sheegay in shacabka Tigreegu haatan ay meel kasta oo ay joogaanba kaalinta ugu weyn iyagu ka qaadanayaan dagaalka waxa markale uu ku celiyay khasaarihii labadii maalmood ee la soo dhaafay ay u geysteen ciidamada dalka Eritrea iyo ciidamada dowladda federaalka ah iyo weliba kooxaha taageeraya ee axmaradu in ay yihiin kuwa ay kalsooni ku qabaan in aanay u soo gudbi karin amaba aanay isku dayi karin magaalada Maqale in ay soo gaadhaan amaba ay u soo dhawaadaan waxaase uu ugu baaqay mar kale guud ahaanba shacabka Tigreegu meel kasta oo ay joogaan in ay u diyaar garoobaan sidii ay u baabi'in lahaayeen araxdana ay uga jabin lahaayeen ciidamada duulaanka ah ee iyagu isku dayaya in ay magaalada Maqale iyo guud ahaanba deegaanka Tigreega shacabka ku dhaqan ay dhibaato u geystaan waxa uu sheegay in duqeymaha isdaba joogga ah ee ciidanka militariga dalka Itoobiya dhinaca cirka ay ka geysanayaan in ay khasaare ba'an u geysteen dadka shacabka ah waxaase uu sheegay in shacabka Tigreegu ayna marnaba goradda ama madaxa laalaadin doonin oo aanay isu dhiibi doonin cadowgooda waa sida uu hadalka ku dhigay sida muuqataba sawirkani waa laba qof oo waayeela oo ay yare ama u egba inay yihiin lamaane iyagu gaboobay ama duqoobay oo dhinacooda dagaalka kaga jira kuwaasi oo sidaa ay shacabka Tigreegu ku doodayaan difaacaya taariikhdii awowyaashooda ujeedada keliya ee ay leeyihiinna ay tahay in ay cadowga haatan ku soo duulay deegaankooda ay ka ilaaliyaan amaba ay ka difaacdaan waana mid muujinaysa dareenka guud ee shacabka Tigreega iyo sida haatan ay ugu muuqato in ay uga hortagaan ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo xulafadooda kala duwan ee isugu jira ciidanka Eritrea iyo ciidamada maamulka axmarada oo ay kaabayaan maleeshiyaadka kala duwan ee qowmiyadda axmarada kuwaasi oo ay u arkaan in ay u socdaan in ay cagta mariyaan amaba xasuuqaan shacabka Tigreega oo iyaga naftirkooda dekanooyin badan lagu tuhmayo si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed shalay ayaa waxa uu dhibay amarkii ugu dambeeyay ee dhinaca dagaalka ee lagu soo afjarayo kooxda TPLF waxaa dhacay dagaalo culus dagaaladaasi dhacayna dagaalkii goobta ugu dhow u jiray magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ayaa lagu sheegay 65 kiiloomitir in uu ahaa goobta uu ka dhacay waa dagaalkii ugu dhowaa ee ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo ciidanka maamulka Tigreegu ay isku fara saareen amaba goobtii ay isku fara saareen ee ugu dhoweyd magaalada Maqale ayaa lagu sheegay 65 kiiloomitir sidoo kalena waxa uu sheegay afhayeenka ciidanka militariga dalka Itoobiya in ciidamadii bari lahaa magaalada Maqale ay jidka ku soo jiraan halka wasiirka gaashaandhiga ee dalka Itoobiyana uu sheegay in wax aan ka badnayn 30 kiiloomitir ama 30 kiiloomitir ka yar in ay u jiraan amaba ay ku sugan yihiin ciidamada militariga dalka Itoobiya saacad kastana ay geli karaan halka wakaaladda wararka ee Eritrean Press iyaduna ay sheegtay in 22 kiiloomitir oo kaliya meesha 22 kiiloomitir oo kaliya meel u jirta inay joogaan ciidamada militariga dalka Itoobiya oo gacan ka helaya kooxo dhinaca farsamada ah oo ka socda dalka Eritrea halka dhinaca kale qoladan Tigreeguna ay sheegeen in iyagu meel kasta oo la joogaba ay u darban yihiin sidii ay u difaacan lahaayeen deegaankooda iyaga oo dhammaanba ka hortegaya ciidamada isa soo bahaystay
dhinaca kalena afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa istaqbalkii xalay waxa uu sheegay in ay diyaariyeen amaba ay magacaabeen ergey u qaabilsanaan doona wadahadallada ay la gelayaan midowda Afrika, midowda Yurub, qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo weliba dowladda Ethiopia. Ma una magacaabin ergeygaasi midka uu yahay, waxaase uu sheegay haatan wixii ka dambeeya in uu magacaaban yahay ergey ka go'aan gaari doona wadahadallada iyo qodobada laga wada hadlayo ee ay ka wada hadli doonaan dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo dowladda Tigray. Waa sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale oo uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka si dadka dhibaatadu ay soo gaadhay ay u helaan raashin iyo cunto iyo weliba daawooyin. wax kaste waxa uu sheegay in iyagu ay ka hormarinayaan badbaadinta shacabka ku dhaqan goobaha ay dagaaladu ka socdaan. waxaana uu sheegay inay isdifaaci doonaan, marnabana aysan dhici doonin in ay cadowgooda qoorta u laalaadiyaan, balse cid kaste oo ku riyoonaysa in ay cadowgeeda ama cid kaste oo ku riyoonaysa inay Tigreegu cadowgooda qoorta u laalaadiyaan ayaa waxa uu ugu baaqay inay niyadda ka saaraan, waxbana ayna iskula hadhin ee ay yimaadaan jiidda hore ee dagaalka, isagoo oo dhinaca kalena muujinaya mar walba inay ka doorbidayaan dagaalka wadahadal iyo miiska wadaxaajoodka dushiisa in la isugu yimaado. si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa maanta in ay ciidamada dalka Ethiopia kuwoodii ugu badnaa in ay gaadhaan jiidda hore ee dagaalka magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega, halkaasi oo shalayba uu bilowday dagaal ka dhacay meel qiyaastii 60 kiiloomitir ka durugsan, iyada oo dhinaca kalena la sheegayo amaba ay saraakiisha dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia mid waliba waxa uu doono uu ku hadlayo, iyada oo qaarna ay sheegayaan in magaalada ku xayndaban yihiin, qaarna ay ku doodayaan ciidamadii magaalada qaban lahaa in ay jidka ku soo jiraan oo weliba aanay soo gaadhin goobaha dagaalka. siday dooniba ha noqotee wixii ka soo kordha haddii allaha awoodda lihi ogolaado wararka la xidhiidha dagaalka magaalada Maqale ku wajahan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu amray, waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire TV. waxaana xusid mudan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu isagu sheegay in ay ka digtoonaan doonaan amaba mar walba ay ka fogaan doonaan goobaha dagaalka amaba goobaha dadka rayidka ahi ay ku nool yihiin amaba ay ku sugan yihiin, inay ka ilaalin doonaan amaba ay ka dhowri doonaan duqaynta madaafiicda dhinaca cirka iyo weliba madaafiicda dhinaca dhulka. arrintaasi oo ah runtii mid si weyn ay uga qayliyeen beesha caalamka iyo guud ahaanba dalalka iyagoo haatan walaaca ka muujinaya dagaalka ka socda gobolka Tigray ama deegaanka Tigray, kaasi oo muddo 23 maalmood ah si foolka fool ah uga socda qaybaha kala duwan ee deegaanka Tigray. si kastaba ha ahaatee wixii ka soo kordha dagaalkaasi haddii allaha awoodda lihi ogolaado rabbina uu noo ogolaado, waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire Media haddii allaha awoodda lihi ogolaado. tan iyo mid lamid ah warbixintan intaan isugu imaanayno waa Galad Xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlayay. kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta hawada nagala socotay meel kasta waad joogtaanba waxaan idin leenahay ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadha dhinaca iyo dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka waqooyi ee deegaanka Tigreega oo haatan muddo ku dhawaad 23 maalmood ah uu ka socdo guluf dagaal oo u dhexeeya ciidanka militariga dalka Ethiopia iyo ciidanka maamulka Tigreega. haddaba aan ku bilaabanay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa uu bixiyay sida aad wararkeennii horeba kula socoteen amarkii ugu dambeeyay ee dagaal ee lagu soo aftarayo kooxda fallaagada ah ee TPLF, kuwaasi oo iyagu indhowaalaba dagaal khadhaadh kala horjeeday ciidanka militariga dalka Ethiopia oo ay sheegeen in uu ku soo qaaday duulaan gardarro ah. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa ciidamada uu ku amray in si rasmi ah ay u soo afjaraan jiritaanka kooxda TPLF, balse kooxda TPLF ayaa iyadu dhankeeda waxa ay muujinaysaa in ay difaac adag ah ugu talagashay in ay kala hortagto ciidanka militariga dalka Ethiopia, ciidamada dowladda Eritrea iyo weliba maleeshiyaadka kala duwan ee maamulka Axmaarada.
haddaba iyada oo maalinnimadii shalay ahayd ay dhaceen dagaallo culus oo ka dhacay jihooyin kala duwan oo magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega si weyn uga durugsan dowladda federaalka ah saraakiisha ka wakiilka ah ee hogaaminaya ciidanka militariga Ethiopiana ay sheegayeen in ay ku xayndaaban yihiin amaba ay ku hareeraysan yihiin magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ayaa waxaa soo baxaya haatan warwarkaasi si weyn uga duwan oo xaqiijinaya in ciidanka militariga dalka Ethiopia ilaa iyo haatan aysan gaadhinba meel ay madaafiicda dhinaca dhulka ama sawaariikhda dhinaca dhulka laga ganaahi ay ka gaadhi karaan waxaana warkaasi xaqiijiyey taliyaha ama madaxa isgaarsiinta amaba afhayeenka ciidanka militariga dalka Ethiopia General Maxamed Tasema kaasi oo isagu maalmihii dhoweyd oo dhanba sheegayay in ay ku xayndaaban yihiin magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. General Tasema waxa uu sheegay in ciidamadii weerari lahaa amaba geli lahaa magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreegu ay safar dhinaca dhulka ku jiraan goobo badanna ay dagaal kula kulmeen ayna ku guuleysteen goob kaste oo ay dagaal kala kulmeen waxaana uu sheegay ciidamadaasi in ay gaari doonaan maalinnimadan maanta ah oo taariikhdu ay ku dhagan tahay 27 bisha 11 ee 2020 Maxamed Tasema waxa uu sheegay in marka ciidamadaasi ay gaadhaan goobaha ama jiida hore ee ay ku hardamayaan ciidamada maamulka Tigreega iyo kuwa dowladda federaalka ah in uu si rasmi ah u bilaaban doono gulufka la doonayo in lagu galo magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega warka kale ee xiisaha leh ee ka hor imaanaya warka afhayeenka ciidanka ayaa waxaa isna u yahay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia isaguna uu sheegayba haatan in ciidamadoodu ay gelayaan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega taasi oo muujinaysa in iska warqabta saraakiisha iyo weliba mas'uuliyiinta kala duwan ee dhinaca hogaaminta dalka Ethiopia uu haatan aad u yar yahay wax xog ah oo ay iska hayaan aysan jirin wasiirka gaashaandhigga Ethiopia waxa uu sheegay in 2 maalmood kaliya ay ku soo afjari doonaan gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxda TPLF ayna kula wareegi doonaan deegaanka Tigreega oo dhan oo ay ugu horeyso magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega taliyahan ama wasiirkani gaashaandhigga oo lagu magacaabo Yedeta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka militariga dalka Ethiopia ay haatan xayndaaban yihiin magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega ayna u jiraan qadar dhan qiyaastii 30 kiiloomitir ka yar waxa uu sheegay wasiirku in aanay jirin cid ka hortaagan haatan gelitaanka magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega oo dhammaanba haatan ah mid go'doona oo aanay jirin cid ka bixi karta iyo cid soo geli karta warkaasi sida aan sheegnayba waa war khilaafsan ama ka hor imaanaya warkii uu sheegay afhayeenka guud ee ciidanka militariga dalka Ethiopia ee haatan iyagu howlgalka ku jira General Maxamed Tasema kaasi oo sheegay in ciidamadii geli lahaa ama ciidamadii qaadi lahaa weerarka lagu soo afjarayo kooxda TPLF ay wadada ku soo jiraan dagaallo dhowr ah ama dagaallo ay la kulmeenna ay guula ka soo hoyeen ayna soo gaari doonaan kolba xilliga ugu macquulsan jiida hore ee difaaca magaalada Maqale ay kaga jiraan haatan ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia dhinaca kale dagaalka iyaguna waxaa qayb lixaad ka qaadanaya dowladda Eritrea oo iyada naftirkeedu ay muuqato haatan kaalin mugle inay kaga jirto howlgallada la doonayo in kooxda TPLF lagaga saaro magaalada Maqale iyo nawaaxigeeda wakaaladda wararka ee dalka Eritrea ayaa waxa ay baahisay amaba ay sheegtay in cutubyo ciidamo ah oo iskaashanaya oo ka wada tirsan ciidanka militariga dalka Ethiopia iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidanka dalka Eritrea amaba ay ku sheegtay cutubyo dhinaca farsamada ka caawinaya ciidanka dalkaasi Ethiopia in ay iyaguna haatan dhaqdhaqaaq ka wadaan meel u jirta magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega 22 kiiloomitir ama 20 kiiloomitir oo kaliya wax aan ka badnayn waxaana goobtaasi ay sheegtay in haatan ciidamada iskaashanaya ee militariga dalka Ethiopia
iyo weliba ciidamada farsamada lagu sheegay ee iyaguna ka qayb qaadanaya sidii kooxda TPLF looga takhalusi lahaa haatan ay dhaqdhaqaaq ka wadaan sidoo kalena ayba bilaabeen duqeyn dhinaca dhulka ah oo ay ciidamada militariga dalka Ethiopia ay ku geysanayaan amaba ay la beegsanayaan goobo cayiman oo ka tirsan magaalada Maqle ee caasimadda maamulka Tigreega waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Eritrean Press waxa ay sheegtay in ciidamadu dhaqdhaqaaqii ay wadeen ilaa iyo shalay gelinkii hore ay guulo waaweyn ka gaadheen ayna la wareegeen sida iyadu ay sheegtay goobta lagu magacaabo goobta laga dhaliyo quwadda korontada oo ka mid ah meel aan ka fogeyn magaalada Maqle waxaana ay goobtaasi ku sheegtay in la yiraahdo Ashegoda oo ah goob ay beer ahaan ah oo sida la sheegay laga dhaliyo quwadda korontada qiyaastii quwad koronto oo dhan 120 megawatt ayaa laga soo saaraa ayay tiri oo dhinaca quwadda korontada ah Ashigoda ayay sheegtay in ciidamada militariga dalka Ethiopia ay si rasmi ah ula wareegeen dhulkaasi oo ah dhul ballaaran dhinaca barigana kaga beegan deegaanka ama magaalada Maqle ee caasimadda deegaanka Tigreega ayay sheegtay in si rasmi ah ay u maamulayaan ciidanka militariga Ethiopia iyo weliba kooxaha dhinaca farsamada ka taageeraya ee ka socda ciidamada dalkaasi Eritrea waa sida ay sheegtay Eritrean Press waxaana ay sheegtay in haatan ciidamadaasi ay u darban yihiin sidii ay u soo afjari lahaayeen amaba meesha ay uga saari lahaayeen kooxda TPLF ee iyadu dhibaatada ku noqotay guud ahaanba geeska Afrika waa sida ay sheegtay Eritrean Press waxaana ay sheegtay Eritrean Press in saacado kooban lagu soo afjari doono gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxda TPLF warkani oo u muuqda mid ka mid ah ololaha dacayada dhaqanka ah weerarka la doonayo in lagu qaado magaalada Maqle ee caasimadda maamulka Tigreega sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi Eritrea waxa ay isu diyaarinayaan ciidamada dalka Ethiopia gaar ahaan ciidamada lugtu in ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee iyagu geli doona magaalada Maqle waxaana taageero ay ka heli doonaan ciidamada dalka dalka Ethiopia oo ay sheegtay in ay si firfircoon uga dhaqdhaqaaqayaan guud ahaanba hawada magaalada Maqle ee caasimadda maamulka Tigreega sidoo kalena waxa ay sheegtay in ciidamada ku jooga gaadiidka gaashaaman iyaguna ay haatan isu diyaarinayaan sidii ay kaalin nugle uga qaadan lahaayeen sifaynta waxa loogu yeeray kooxda argagixisada ah ee TPLF kuwaasi oo ay sheegtay Eritrean Press haatan gebi ahaanba waqtigoodii in uu dhammaaday dhinaca kale waxa iyaguna warkani war ka duwan sheegaya kooxda TPLF ama hogaaminta sare ee maamulka Tigreega kuwaasi oo iyaguna sheegay in ay isu diyaariyeen sidii ay isaga difaaci lahaayeen dhammaanba weerarada qorshaysan ee ay ku soo qaadayaan kooxaha kala duwan ee iyagu haatan weerarka ku ah magaalada Maqle ee caasimadda maamulka Tigreega waxa uu sheegay afhayeenka ciidamada maamulka Tigreega Gabriel Sadaqa in ciidamada militariga ama ciidamada iskaashanaya ee maamulka Tigreega iyo weliba maleeshiyaadku ay horeyba u sii diyaariyeen qorshihii difaaca magaalada Maqle cabsiyana aysan ka qabin in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay soo galaan magaalada Maqle ee xarunta maamulka Tigreega waxa uu sheegay in ciidamadooda oo gacan ka helaya maleeshiyaadka kala duwan ee Tigreega haatan ay isku diyaariyeen sidii ay dhabarka uga jabin lahaayeen gebi ahaanba ciidamada duulaanka ku soo ah magaalada Maqle oo isugu jira ciidamada maamulka Addis Ababa iyo sidoo kale ciidanka ka imaanaya dhinaca iyo Asmara waa sida uu sheegay kuwaasi oo uu sheegayba ilaa iyo haatan in ay awood u lahayn in ay soo gaaraan magaalada Maqle marka laga reebo duqeyn dhinaca cirka ah oo uu sheegay muddadii dagaalku uu socdayba in ay ahayd waxa keliya ee ay dhibaatada ah ee shacabka Tigreegu ay la kulmeen waxa uu sheegay in shacabka Tigreegu haatan ay meel kasta oo ay joogaanba kaalinta ugu weyn iyagu ka qaadanayaan dagaalka waxa mar kale uu ku celiyay khasaarihii labadii maalmood ee la soo dhaafay ay u geysteen ciidamada dalka Eritrea iyo ciidamada dowladda federaalka ah iyo weliba kooxaha taageeraya ee axmaradu in ay yihiin kuwa ay kalsooni ku qabaan
in aanay u soo gudbi karin amaba aanay isku dayi karin magaalada Maqale in ay soo gaadhaan amaba ay u soo dhawaadaan. waxaase uu ugu baaqay mar kale guud ahaanba shacabka Tigreegu meel kasta oo ay joogaan in ay u diyaar garoobaan sidii ay u baabi'in lahaayeen araxdana ay ugu jabin lahaayeen ciidamada duulaanka ah ee iyagu isku dayaya in ay magaalada Maqale iyo guud ahaanba deegaanka Tigreega shacabka ku dhaqan ay dhibaato u geystaan. waxa uu sheegay in duqeymaha isdaba joogga ah ee ciidanka militariga dalka Itoobiya dhinaca cirka ay ka geysanayaan in ay khasaare ba'an u geysteen dadka shacabka ah. waxaase uu sheegay in shacabka Tigreegu ayna marnaba goradda ama madaxa laalaadin doonin oo aanay isu dhiibi doonin cadowgooda. waa sida uu hadalka u dhigay. sida muuqataba sawirkani waa laba qof oo waayeela oo ay yare ama u egba inay yihiin lamaane iyagu gaboobay ama duqoobay oo dhinacooda dagaalka kaga jira, kuwaasi oo sidaa ay shacabka Tigreegu ku doodayaan difaacaya taariikhdii awowyaashooda. ujeeddada keliya ee ay leeyihiinna ay tahay in ay cadowga haatan ku soo duulay deegaankooda ay ka ilaaliyaan amaba ay ka difaacdaan. waana mid muujinaysa dareenka guud ee shacabka Tigreega iyo sida